sidee buu qofku ku noqon karaaba isweydiin le qof dhaqan fiican maadaama ay qiimaha intan leeg diinta iyo dhaqamada bini aadamkaba akhlaaqdu ku leedahay waa maxay waddada loo mari karaa ugu horrayn waxaan leenahay akhlaaqdu qaybi waa fitri waa abuur qaybi waa abuur qaybina waa muktasab waa wax la barto oo tadriib iyo training waa wax tababar loo galo si aad naftaada u dhisho oo qurunka uga dhisho oo aad ka dhigtid qof suuban oo hagaagsan nabiga calayhi salaatu wasalaam wafdi baa u yimi nin ashaj cabdilqays la yidhaahdaa uu la socdo ninka kan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fiika la khaslatayni yuxibuhum allah waxaad niya u leeday laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey laba dhaqan oo ilaahay jeceliyey wuxuu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam riwaayaadku waa kala gedisan yihiin riwaayadda muslim waxay sheegaysaa alxilm walanaah dulqaad iyo kaadsiinyo hubsiino waxaa tahay qof dulqaad badan oo dulqaadku qofku inaanu wax yari ihaara ku samayn inaanu kicin soomaalidu waa dad soodhaa inta badan waa dad uu aad ugu yar yahay dulqaadka iyo sabirku laakiin nebigu ninkan wuxuu ku ammaanayaa inuu yahay qof deggan marka hore oo anaa leh deganaanshiye leh dulqaadna leh riwaayadda imaamu nasaa'i say sheegayso wuxuu ninkii weydiiyey shay-un jubiltu calayhi aw shay-un atakhallaqu ma wax ilaahay igu abuuray baa mise waa dhaqanaan kasbaday ma dhaqanaan yeeshay anigu iyo xirfad ku keenay baa mise waa wax ilaahay subxaana wa tacaala igu abuuray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa bal jubilta calayh maya labada tan adigu waa sajiya waa dabeeca ilaahay subxaana wa tacaala kugu abuuray idan qaybi baynu leenahay dhaqanka waa abuur oo waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala qaala inamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki ghulaaman zakiya ciise ilaahay markuu maryamo siinayey ugu bushaaraynayey malagii u yimi wuxuu leeyahay waxaa rabbaa isoo diray si aan kuugu hibeeyo ghulaaman zakiya ghulaan la tahiray wiil fadiilo oo dhan wata waxay culammadu yidhaahdaan min طabcihi bay ciise ka mid ahayd in sidana ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala idan waxaynu leenahay akhlaaqiyaadka qaybi waa abuur oo dee waynu kala cadho badannay hebel qofna waxaa laga yaabaa inuu marka laba eray la yidhaahdaba kaco qofna inuu degan yahay oo uu dul qaato waa kala sabir badannay waa kala abuurkeenna hore